السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشا نقد داونا يو برتيني انترنتكا وحان دمانتي نيدي ليهي habeen wanaagsan meel kastoo aad naga daawanaysaan xilli kastoo idin tahay waa mar kale aynu ku kulmayno barnaamijkeenii falanqaynta toddobaadka ka hor inta aan barnaamijkeenii gudagelin maanta waxaa magaalada muqdisho ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen beelaha banaadiriga kulankaas oo lagu qabtay restaurantiga Al-Hindi kulankaas wuxuu ahaa kulan wada tashi ah runtii kulanka waxaan oo kale ah horey looma arkin waa markii ugu horeysay oo beelaha banaadiriga ah si joogta ay u kulmaan dhammaan inta ka soo qayb gashay oo ugu horeeyo guddoomiyaha ku-meel gaarka mudane cadde xaj suufi Al-Hindi waa u hambalyeynayna waxaan leenahay dadaalka aad wadaan meesha ka sii wada waxaan idin rajaynaynaa guul iyo horumar beesha banaadirigana ama qowmiyadda banaadiriga oo dhan waxaan leenahay tilaabadan waa markii ugu horeysay tilaabo noocan ah la qaado waxaan leenahay dadaalka socdo hala garab istaago hana laga wada qayb qaato midaynta qowmiyadda banaadiriga arrintaas meesha haddii aan uga baxo caawo waxaa marti inoo ah aqoon-yahan siyaasi isla markaana u ololeeya arrimaha xuquuqda banaadiriga aqoon-yahankan wuxuu ku nool yahay dalka Sweden badan ayuu runtii u soo joogay arrimaha Soomaaliya guud ahaan iyo tan banaadirigaba waa Cumar Jeelow Gaasi marka hore waxaan ku leeyahay soo dhawow Cumar Jeelow Gaasi barnaamijka falanqaynta oo aad caawa naga ogolaatay inaan kugu wareysano mi maqlay mahadsanid walaal Zayn run ahaantii baryahan waxaa social media baraha bulshada ka socdo buux badan oo ay sameynayaan qowmiyadda banaadiriga waxay leeyihiin 4.5 ayaan ku dulmanahay 4.5 koo markiisa horeba dulmi ahaa haddana waxay leeyihiin 4.5 kii ayaana lagu dulmay marka horta waxaan jecelnahay inaad 4.5 ka nooga hadashid wuxuu yahay kadibna arrintan guuxan socdo maxaa ka jiro bismillaahir rahmaanir rahiim waa ku salaamay walaal Zayn adiga iyo bahda saxaafadda u istaagay qowmiyadda banaadiriga midnimadeedii iyo waxtarkeedii u soo jeeda habeen iyo maalin taasi mahad gaara tan kale waxaan mahad kale u celinayaa walaalaha muqdisho iyo gobollada Soomaaliya guud ahaanba ka wada dhaqdhaqaaqyada lagu raadinayo xuquuqda reer banaadir waxaa ugu horeeya sida hadda maanta ii muuqatay oo muddooyinkan dhanba maalmahan u dambeeyay socday guddoomiyaha ku-meel gaarka ah cadde suufi oo shaqo aad loogu baahnaa ummadda u haya waana arkay maanta shaqadii ugu dambeysay ay qabteen in guddoomiyihii Sanu Muridi Golf oo xilkii si rasmi ah maanta ugu wareejiyey cadde suufi marka inta iyaga iyo dhammaan odayaasha ka qaybgalayaasha 49 qabiil ee reer banaadir intaasoo dhan salaan iyo hambalyo ayaan hawada u marinayaa intaas markaan ka gudbo aan usoo dhaandhacno muhiimadda caawa aan halkan u fadhiyo oo ah xaaladda 4.5 horta kelimadan 4.5 ma jiro
minguurin meel laga soo raray ama reference ma laha wax taariikh Soomaali meel ay ku qoratay laga soo minguuriyey ma jirin qaab dhaqan iyo qaab siyaasadeedba waa kelimad waxaa keliya ay soo ifbaxday shirkii Embagati ee Kenya waxaa kasii horeeyey shirkii Carta ee Djibouti lagu qabtay oo ku soo ifbaxay magac la yiraahdo Others oo macnaheedu yahay kuwa kale arrimahaas markii laga soo gudbay caqabado badan iyo dood iyo dad ay sabab u noqdeen hataa dhibaatooyin ay usoo gaaraan mid shakhsiyadeed oo loo soo gudbay kelimadan 4.5 oo laga wado 4 beelood ee Soomaaliya iyo 5 oo ah beelaha kale anu kolley macaani ahaan waxaa isaga qaadanaynaa cid istirisay ma lahan keliya waxa loola jeeday ulajeedadu ahayd beelaha aan hubaysnayn iyadoo intaasa ma ahan wax dastuuri ah oo sharciga Soomaali iyo qawaaniinteedii meel kaga qoran oo la dhahayo waa wax dastuuri ah 4.5 programka la dhahayo waa wax ay ummadu wada heshiisay oo looga gudbaayay marka dhibaatooyin markaa taagnaa ee isqabqabsi beeleed 4.5 ka marka la dhahay barkii ayaa qaybaha walaalahan markii banaadiriga la keenay iyo Samo oo ah walaalaha Jareerweyne oo loo qaateen ahayd haddii loo dayn lahaa labada beelood oo beelo waaweyn haddii la isu geeyo aanan u dhigman beelaha kale ee hadda sheeganaya inay ka tiro badan yihiin ayaa haddana waxaa lagu soo dhex daray beelihii kale ee walaalaheena Soomaaliyeed ayaa haddana dad ka kooban meesha dhexdeeda haddana lagu soo dhex daray marka taasaa marka waxay keentay in wax badan barkii ay haddana dib ula noqdaan dadka walaalahan kale ee Soomaaliyeed ayna si saamigii barka ahaa hataa dad ayna deegaan iyo dhaqan hataa meel ayna iska soo gelaynin ayaa xisaabta la isku soo daray dadkana waa iska ogtahay dad iska afgaaban oo waxoodii haddii la qaato aan ka hadlaynin ay haayeen siyaasadna aad bay uga fogaa jireen dhexgalkeeda waxay ka jeclaan inay dad iska business ah haddii ay nabad helaan marka xaaladda 4.5 mar kasta oo ay joogaan ka soo bilow shirkii Carta 2000 ilaa iyo hadda 19 loo socdo system kastoo yimaada banaadiriga ay ku dulmanaayeen maran nin qof haddaan rabin magaciisa inaan sheego madaxweyne ah aan ugu tagnay annagoo kala hadlayna dulmiga dadka 5 in ay ku dhiban yihiin hataa caasimadoodii Muqdisho ayna ka helin hataa duqii magaalada ama ku xigeenkii gobolka markaas marka odaygii golaha wasiirada hataa saas oo kale waa lagu dulmanaa agaasimayaasha lagu dulmanaa safaaradihii lagu dulmanaa marka wuxuu yiri ii dulqaata reer Banaadir waxaan idinku tuhmaa inaad tihiin dad iimaan leh waxaan soo rooyaa buu yiri wax u qaybinaya dad iimaan laawayaal marka nin kastoo yimaada system kastoo imaadana wuxuu Banaadiriga ku qanciyaa inuu u sheegayo uu leeyahay ii dulqaata kuwa oo hubaysan oo iimaan aan lahayn oo dhaqaalihiina dhamaystay hubkii hadduu yimaado iga qaadanaya ciidankii mishaarkii iyo qaybtooda qaadanaya wasiiradii haddii iyagoo dhan la siiyaanan ku filnayn ayaan wax deeqsiinaynaa marka markastaba dulqaadkoodii ayay intan kusoo gaartay marka aamusnaantoodii waxay u keentay in xuquuqo badan ay lahaayeen ay waayaan aye codkaa kaa go-ayaan u malaynaa insha allah dahi maqasho waxaan ku daayay inaa adiga wixii kuu muuqda markaa su'aalo ay weydiin karta ay weydiisid ani xoogaa mar ay 4.5 iyo qaabkay ku timid
aysan sharci ahayn aad iyo aad aad umahadsan tahay sida quruxda badan oo waafiga aad noogu soo koobtay 4.5 oo asal ahaanba dulmi ah meel uu adduunyada ka jirana uusan jirin mar hore waxaan u qeexnay waxa waaye qof bini aadan oo jiro ayaa waxaa laga dhigay nus bini aadan marka guuxaan oo maalmahan aad u soo badanayo reer banaadir waxay leeyihiin dulmi isagoo ahaa ayaana lagu dulmooyaa haddana macnaha waxa waaye matalan jagooyin qaar ayaa loo qoondeeyey dadkii 5ka ahaa mararka qaarkood sidii la rabaa la yeelaa markii nin 5 laga qaado nin kalaa loo dhiibaa macnaha nidaamka awood qaybsiga 4.5kana waxaan ku ogeen haddii nin oo meel laga qaado isla nin yacni beeshiisi ahaa lagu beddelaa مثلا nin waxaa laga qaaday kasoo oo beel hebel ah ilaan awood qaybsiyaa jira oo qaybsi oo ku dhisan 4.5 markii ninkan laga qaado nin kalaa loo dhiibaa macnaha sidii la rabaa laga yeeloyaa beelaha banaadiriga xitaa waxaa dhacday safaarad oo safaaradaha ka mid ah sida waddanka imaaraadka waxaa laga qaaday nin banaadiri ah waxay ahayd dhibaato male in laga qaado laakiin in lagu bedelo nin kale oo banaadiri ayay ahayd ilaan xilkan wareegto waaye nasiib daro taas ma dhicin marka arrintaas guuxaas socdo adiga sidee kula muuqataa horta arrintaasi aada ugu faraxsanahay dadka inay baraarugaan wixii ay markaa iyoona dadna dulminaynin waxay xaq u lahaayeen inay sheegtaan adiga hadda waxa uu sheegtay safaaradda keliya imaaraadka waxaa intaa weheliyey safaaradda kuwait oo cabdiqaadir amiin uu joogay nin cabqari ah oo muxanag ah oo siyaasadda soomaaliya iyo diblomaasiyadda soomaaliya aaba u ah iyo cabdiqaadir shiikhe oo ahaa ambasadorka imaaraadka waa ku fiicnaan lahayd haddii marka qofka inta meel laga qaado oo sidaa loo mahad celiyo ama loo og yahay abaalka uu ummaddaasi intuu meesha joogay uu u qabtay waxaa intaa kuu dheer in lagugu eedeeyo ama cay iyo aflagaado iyo meelka dhac qofka sharafkiisii in la sameeyo marka iyadoo kulaylkii iyo xanuunkii ay lahayd boosishanada la qaaday aana beddel dad u qalma ee soomaalinimada u gubanaya aan la keenin ayaa haddana waxaa arkaysaa ninkii markaasi ka tegey haddana inuusan ku eed la'ayn oo meel kasta iyo maxfal kastaba magaciisii si xun in loo soo qaadayo marka waxaan aaminsanahay dad ka fiican oo taariikh ahaan meelaha ay ka galeen iyo khidmada ay ummadda inta ay meelaha joogeen xilalka hayeen ay u qabteen ma jirin ayaa la dhihi karaa boosaskaa la qaadayna ilaa ay hadda ma muuqato in maaragtay ilaa ay hadda miiska ayna u saarnayn muxuu ahaa qof badiil u noqon kara labada safaaradood oo ilaa ay hadda aanan hadda ku fekerin mas-uuliyiinta xukuumadda hadda joogta anoo aada uga xun inaan hadda maaragtay livena ku eedeeyo in ay aad iyo aad iyo aad aan uga xunnahay sida ay qaabka ay hadda wax ku socdaan iyadoo ay dowladdiisii marayso sanadkii u dambeeyey in ay boosishanada bannaan xilalka waaweyn ee ummadda loo khidmaynayo laga qaaday dadka reer banaadiriga ah in ilaa ay hadda aan la soo wadin ama ayna muuqanin shakhsiyaad boosishanadaas lagu buuxinayo asbaabahana waxaan u maleeyaa sida horeba kugu sheegay
reer banaadiri mar kasta waxay leeyihiin maya tan ka dambaysa ayaa ka fiicnaan doonta waxaan rajaynaynaa mar kastaba systemka kala bedela wax oo wixii hore jiray inay uga sii daraan mooyaane wax oo ay ka kordhisanayaan ma jiraan marka dadka qowmiyadda banaadirigana uma samaysna sida nin waxaa arkay mathalan jooga raba la kulanka maamulka ama xukuumadda markaa jirta 3 bilood hotel u degaayo qarashkiisii wata maalin kasta tagaayo dib u soo noqonayo waqtiis raadinayo laakiin ninka banaadiriga waxaa laga yaabaa inay ku badan tahay hal isbuuc hadduu meesha taagnaado oo wax raajiciyo inay culays ku tahay ku noqnoqoshadaas iyo wejigabaxaasi oona samayn karaynin qaarkood waxaa arkaysaa inay madaxtooye taagan yihiin ilaa iyo 3 habeennimo ama 4 habeenno waaga barya salaad subax meesha ku dukada marka hore iyadoo ayna u saamaxaynin duruufta amniga ah iyadoo u saamaxaynin dabeecadda jibilada ilaahay ku abuuray inay musaaxama ku sameeyaan ama isku ciriiri ama isku riix irdaha madaxtooyada irdaha xafiiska ra'iisul wasaaraha ayna samaynin ayaa waxay kalifaysaaba inayba loo dareemay inay dadkaan waxba ka maqnayn taasaa marka waxay keentay inaan live-ka igu soo martigelisaan aanna sheegno annagoona dadna ku dulminaynin waxa ummaddanu ka maqan tahay soo ogeydeen banaadirigu inay positionka siyaasadeed ee xilka saddexaad ee madaxweynenimada ay soo waxaan u maleynayaa xoogaa barnaamijka walaalkayga xoogaa shaashadiisii way fadhiisatay waxaan rajaynayaa insha allah in uu ku soo laaban doono daawadayaasha sida tooska noo daawanaya dhammaantiin waxaan idin leeyahay barnaamijkan insha allah waa ku soo noqon doonaa walaalkayga waa barnaamij aad iyo aad muhiim u ah waxaana loo baahan yahay aragtidiinni in aad nala wadaagtaan qoraal iyo haddii aad doonaysaanba inaad nala soo xiriirtaan oo aad barnaamijka qayb ka noqotaan barnaamijka sida aan horey u sheegnay waxa uu ku saabsan yahay oo aan uga hadlaynay 4.5 oo asal ahaan dulmi ahaa haddana dadka banaadiriga waxay leeyihiin asoo dulmi ahaa ayaa haddana nalagu dulmooyaa yacni walaalkayga cumar insha allah isla linkigii ku soo noqo fadlan waxaan rajaynaa inaad barnaamijka dib ugu soo laabato si aan meesha uga ambaqaadno barnaamijkeennii caawa aad iyo aadaan ugu xunahay walaalka oo runtii hadda cumar qadka waa ku jiraa waxaan rajaynaa inuu dib ugu soo laabto insha allah dhammaan walaalaha sida tooska noo daawanayo dhammaantiin waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan insha allah noo dulqaata waa soo laabtay walaalkeenii cumar waxaan u maleynayaa waa ila socotaa aan filaa si fiican ha marka meesha ka sii wado waxa aan sii maraayo khadka iga go'ay in asbaabaha kalifay in dadka reer banaadiriga ah ay ku waayaan waxay xuquuq u lahaayeen iyo boosaskii laga qaadayba xataa in ay ku soo noqon waayaan waxa weeyaan iyagoo sida ay dadka kale waqtiyada iyo iritaagnaanta iyo muraajacada iyo kadaba wareegga ay u sameeyaan aysan tabar u haynin arrinta noocaasa waxay yaqaanaan waxa la weydiisto si sharafa loo qadimo loo dalbado sida systemkaba uu yahay jawaabtana la sugto laakiin annaga waxaa xoogaa nalooga dheereeyaa waxa weeyaan in wixii marka la dalbo la daba taagnaado habeenno loo dhafro irdaha lagaa soo celiyo
wejigabax ka qaado macnaha damiirka qofkan banaadirigu ma qaadi karo qaabka sisteemyada shaqeeya banaadiriga farudheg ma yaqaanin ma ka wadaa banaadiriga waxay yidhahdaan dadkeena ajenjay dhahan ajenj oo lama dhihi jirin ninka oo wax ku dhegdhega ah inaa qofkan wax satid haddii maha ku dhaho inuu ciyow la quusto laakiin dadkan walaalaheena ma quustayaal waa markaan oo taas ay dhacdo Soomaali waxay dhahaan nimaan hooyadiisii wax weydiinin ama aan weydiinin wax ma siiso haddii anaga iska aamusnaano oo xaqeeni aan ka aamusnaano oo aan dhahin dawladda xaqaa naga maqan dawladda kormee waxna siinaysaa marka aan iska aamusnaano aamusnaantii waa tii hadda aan ka soo baxnay waa tan hadda aan live u joogno waa in aamusnaanta nafteeda derbigeedii aan jebinaa taasaa hadda go'aan naga ah shalay haddii la warwareeganayay on livekan iyo maxaa ku jira maxaa loo soo galaa wax macaani ah maxaa ku jira lalahaa waxaa hadda maahmaahdii shalay ahayd afgoolan dahab oo ay banaadirigu aaminsanaayeen waa laga soo guuray dhaqankii reer guuraagaan qaadanaynaa markaa oo ahaa nimaan hadlin hooyadiis qadisay marka nimaan hadlin hooyadiis qadisay waaye waa inaa hadlaa si aad xuquuqdaada u heshaa saas darteed waaye waxaa haddana keenay waqtigan liveka ugu jirno aan waqtigeen u gelinayn marka arrimahan oo hadda aan soo tirinay jogooyin badanaa jiro xitaa gobolka banaadir haddaan hadda u soo laabano tii safaaradaha meel noo dhig gobolka banaadir runtii waxaan ka degnaa ilaa iyo 7 xaafadood iyo yacni markii taariikhda oo dib aan u raacno gobolkan banaadir xaafadaha oo taariikhiga ah waa ilaa iyo 7 xaafadood macnaa 7daas xaafadoodaan gobolka banaadir ka degnaa dad oo hadda oo yaroo tira yaroo yacni la xaqiri kara ma nihi laakiin ma isleedahay dawladda mar horeyna aragtay oo waana tijaawisi waxay dhahday dadkaan ma dhib badno kheyladoodii iyo buuqoodii waa yar yahay dee sidaas ku maquuni haddii qof oo ayaga la bedelo macnaa qof reer kale u dhib gobolka banaadir waa aragnay hadda jagooyin badan waxaa jiro sida aan la soconno agaasimayaal iyo qaar kale oo laga qaaday oo booskoodii weli bannaan yahay dad banaadiriyaa laga qaadaa booskoodii weli waa bannaan yahay waxay ahayd haddii qof banaadiri laga qaado isla qof banaadiri kale la soo raadiyo la keeno inaan xilka wareegto waaye waddankiina weli wuxuu ku jiraa dhooqadii 4.5 bal arrintaas bal wax ka dhahbe aad iyo aad arrinta gobolka banaadir keliya ma ahan guddoomiyaha gobolka keliya iyo duqa magaalada marka waa jeclaan lahayn si magaca banaadir ay dugsi sare banaadir iyo isbitaal banaadir iyo stadio banaadir iyo tiyaatarka loogu keenay codsi ay markaa aqoon-yahanaha reer banaadir ay jecliyo ay ku jireen ay qadimeen ay ku timid sharaf waxa u ah dadka soo mara sisteemyada iyo maamulka aamusnaanta banaadiriga inaysan arkin waddankan dhismihiisii iyo caasimadaas bilicdeedii iyo meesha iyagu degeen oo xarun ka dhigteen ee ahayd xamarweyne iyo shingaani in ay noqoto meel ay dadkoo dhan ay soomaalida usoo hirato oo qof kastaba uu ku tamaniyo inuu guri ku yeesho marka sisteemyo laga soo gudbay in lasii daba joogo maamul kastoo yimaada in uu sii daba joogo madaxweynihii ka horreeyey wuxuu u sameeyey waxaa fiicnaan lahayd in si cadaalada loo sameeyo in gobolka banaadir in la kala qaado governorka iyo duqa magaalada laba xil oo waaweyn ee isdul saaran wey marka ma quuri waayeen
aan isleeyahay walaalahan Soomaaliyeed weliba caasimadda aan wada degno inay gartaan inay dhahaan walaalahani bal xilka kan ha noqdo sanadkan iyagu inay gobolka governor ka noqdaan waana og yihiin taariikhdii iyo hogaamadii soo maray ee gobolka Banaadir labadii kursi ee gobolka Banaadir uu lahaa 60kii avocado Maxamed Raajis ayaa kursi koowaad ku guuleysay kan labaadna wuxuu ahaa Dr. Ismaaciil Jimcaale saasi marka waxay ku tusinaysaa awoodda qowmiyadda Banaadiriga ay regionkan gobolka ay ku lahaayeen marka iyadoo hadda aan jeedno degmada Xamarweyne oo 6 bilood intaan xamar joogay ayna maamul lahayn sida maamulka hore degmada looga qaaday iyadoo ay maamul ay degmadu ay u baahan tahay meelaha loogu baahi badan yahay ay tahay marka waxyaabo badan ayaa jira ama degmooyinka ha lagu dulmanaado ama gobolka Banaadir dhexdiisa ha lagu sii dulmanaado ama ha ahaadeen dhinaca wasaaradda arrimaha dibadda ama diblomaasiyiinta ha ahaadeeno ama xataa xafiiska madaxtooyada oo dadka ka shaqaynaya oo ka agdhow madaxweynaha inaysan ku jirin marka hadal la'aantii ayaa waxaa keentay in meelo kasto ay Banaadiru ay ka maqan yihiin sidaas darteed loo qaatay inaysan joogin marka weli waa la joogaa waana la nool yahay wixii maqanna waa ka hadli doonaa qodob baan habeenba u soo qaadan doonaa ilaahay idinkiisa macnaha sida hadda aan nahay tan iyo dawladihii soo maray xasan sheekh maxamuud dawladihii koorey ilaa madaxweyne farmaajo waxaa arkeen dawladda waxay ku shaqeeyaysay barnaamij oo dib u heshiisiin si muuqato oo aan qarsooneen dawladihii markaas jiray waxay la kulmaysay meelo goboladooda uu tegaysay oo raali gelinaysay oo dhaqaale ku bixinaysay si beelahaas ay mataqaanaa yacni waa qayb uga qabaan geedi socodka dawlad raadinta meel nabadeed oo ama qowmiyadan oo waddankan yacni qayb ka ah oo dadkii dhibanayaashana ah markii dad dhib soo gaari laga hadlaayo waxaa number 1 ah qowmiyadda Banaadiriga dad la barakiciyey dad la dhibaateeyey ilaa iyo haddana yacni sida dawladda ama dawladaha soo marayba ay ula diil garayso dadka qabaa'ilada kale reer Banaadiriga macnaa ma ula diil garaynin arrintaana qof walba waa u muuqataa yacni dawladda waa aragtaa siyaasiyiinta waa u jeedaan wax oo macnaa cad waaye wax aan qarsooneen waaye oo laablaab ku jirin yacni fariimo badanaan dirnaa wax badanaan gudbinaa jawaabo kama hadlino dawladda laakiin waxay sheegtaa in ay ka shaqaynayso cadaaladda iyo sinaanta in sharciga loo siman yahay waxaas kaliya waxaan u maqalnaa maqal laakiin iyadoo ficil ahaan loo fulinayo macnaha iyadoo oo arrintaas la fulinayo hadday shaqa tahay hadday xuquuq naga maqan ay tahay hadda waxaad carabawday gobolka Banaadir oo hadda maanta murun badan ka socdo murunkiisu waxaa lagu karaa waa haddii cadaalad jirto waaye in guddoomiyaha iyo duqa magaalada la kala qaybsado ilaan dadkii deganaay gobolkan asalka ku ahay waa la yaqaanaa ayagana waa is yaqaaniin magacay lahaayeen oo waxaa la dhihi jiray xamar iyo xamardee wax oo cusub ma aha marka waxaan hadda la raaraadiyooyo maqaam iyo hebel iyo sheeko waxaa ka fududoo ka sahlan in loo kala qaato macnaa guddoomiye gobol iyo duqa magaalada marka arrinta haddii aan meesha uga baxno arrinta safaaradaha waxaa taawatay cabduqaadir amiin oo ku dhowaad 50 sano safiir soo ahay nin aqoon-yahan ahaa macnaha in laga qaado dhibaato ma leh laakiin dawladda xeerkii ma fiirisay
حر أو لجيفي بنان لجوجي بنان أنت أنا كسي arrintaas haddaan ku noqdo point 5kii oo ay qaybahoo dhan ay saamayn ku yeelatay ilaa iyo hadda point 5kii lagu sii dhex dulman yahay ma jirto saan horeba kuugu sheegay mana muuqato wax arrimahaasi ku saabsan oo tallaabo dhankooda loo qaaday ama hadda la damacsan yahay waqti dhow iyo waqti dheerba in boosishannadaas bannaanaaday ee reer banaadir kuraastaa la qaaday in ay dib ugu soo noqonayaan ama xubno loo sii diyaariyeyba ay jiraan waa dadka ugu dhowdhowaan ahay xaaladahaasi u dhundaleelo kana warhaaya ma jiraan waxaad miiska saaran sanadkanna wuxuu isaga dhammaan doonaa kambayn siyaasadeed iyo qaababkii loo soo noqo lahaa marka dadka hadhadla ee qayqayliya xisaabtoodii waa qabaan waxaan u malaynayaa dadka kan walaalaha ah ee hadda aad arbawday labadaa waddan ee culus oo siyaasadda soomaaliyana saameyn weyn ku leh waddamada islaam ah waddamo carab ah oo soomaaliya arrimaheediina aad involved ugu ah in ay maqnaadaan waxaan u malaynayaa quuriwaa wax la yidhaahdaa jira aan laysu quurin in maaragtay qof reer banaadira meel uu fadhiisto ama uu ku matelo marka waxaan leenahay walaalaha ama madaxda waddanka jooga inay dib isugu laabtaan ay fiiriyaan xisaabta buugaagtooda dib ugu laabtaan inta safaaradood oo hal beel inta wasiirood oo hal beel inta agaasimayaal oo hal beel oo point 5ka ka mid ah ay ka qaateen inaysan helin point 5ka kale ku jirto dhammaanteed marka cadaaladda ha loo noqdo waxyaabaha ay dowladu tiirarka iyo asaaska u ah waxa weeyaan cadaalad qawda maqashay waxna haba qaban caqli ma aha marka waxaa idin leenahay dib xisaabaadka ha loogu noqdo hana la eego hoosna ha loo soo fiiriyo dadka aan hadalka dadka ku dhibin dadka aan xafiisyada dadka ku dhibin dadka aan lacagahan laaluushka oo iska daba wareega iyo wixii la bixinaya taa reeraa lagu qancinaya iyo qarash baa la geliyey laleeyahay ayna ku jirin dib u heshiisiin ilaa iyo hadda oo dhab ah oo laleeyahay walaalaheenii waa dulminay maamul ahaan hataa waa gacan bidxaynay wixii mas-uuliyad inaga saarnayd ma ana ka soo bixin intaasina aan naga raalli ahaadeen waxaa laga yaabaa inuu ilaahay idinku hagaajiyo wax badanna waddanka ilaahay uu ku dejiyo waddada saxdana u mariyo waxyaabaha hadda isqabqabsiga ee dhacaya iyo jiitanka dadku waxyaabo kale ay kusii jeedaan waa garan kartaa hadda haddii la dhaho maanta iridkaa waxaa kuu taagan nin reer xamar ama nin reer banaadiri ah inaa macaani weyn ayna u samaynaynin laakiin ilaahay agtiisa ay macaani weyn ka joogto waxaa jiro oo aniga aan isweydiiyaa safaaradaha waa meel muhiim u ah safaaradda adiga meel kuu joogto waxa waaye qaran dhan ayay matalaysaa howl sahlan maa howl culus waaye dowladda yacni waxaan isdhahaa khibrad iyo aqoon iyo karti iyo waxqabad ma fiirinin waxay fiirisay dad markaas ay isleedahay yacni tiim wada shaqaynaya ka tirsan yihiin oo dad isku kooxdaas dadka ka mid ah yacni hala geeya safaaradaha ee ayaan loo fiirinin aqoon waxqabad khibrad sababta aan taas u leeyahay waxa waaye safaaradda imaaraadka waxaa joogay nin soomaaliyeed oo qowmiyadda banaadiriga ka tirsan muddadii uu joogay waa nin u dhabar adeegay inuu yacni magacii soomaaliyeed oo 30 sano burbursanaa inuu soo celiyo safaarad soomaali ay leedahay ninkii dhidibada u aasay u ahay
soomaalida meesha joogto wuxuu ahaa oday yani sida aan ognahay cabdiqaadir sheekhay waxqabaduu sameeyey yani ma arkin ilaa iyo hadda dowladda yani laba shaksiyaan maanta meeshaan ku soo qaadanay tixgelin inay siiso khibradoodii ay u leeyihiin kuwait iyo imaaraadka waxqabadkoodii sumcaddoodii soomaalinimadoodii ma eegin dowladda waxay eegtay tiimka isku xiran ee wada shaqaynaya oo soomaalida ay u taqaano nabad iyo nolol keliyay fiirisay taasna macnaha runtii dadka iyo dalka dan aha xaaladdan hadda dalka uu ku jiro oo la dhahayana awood qaybsiga 4.5 kana dan aha macnaha awood qaybsigii oo usoo lagu dulmanaya haddana wuxuu noqonaa cadaalad daro taas macnaha waxa waaye inaan isla fahamno waaye marka arrintaas maxaa ka leedahay adaa adduunkuugu soo celiyo horeyna waa u sheegay haddana waa ku celinayaa dadka nooca sidaas oo kale expertska u ah oo khibradda intaa la eg kontameeyo sano ama nus qarni ku dhow u leh in maaragtay laga faa'iidaysto ilaa iyo hadda ma arag ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ahaado la taliye arrimaha dhaqaalaha la taliye arrimaha siyaasadda la taliye arrimaha dibadda la taliye arrimaha samafalka boqolaal la taliyaa jirta hal qof oo beelaha banaadiriga ah ee ka agdhow ama protocol jooga ama maaragtay warqadaha la geegeeya hataa dhinaca madaxtooyada ha ahaato ama xafiiska ra-iisul wasaaraha ahaato ma jiraan marka ku filan intaas in maaragtay walaalaha hadda hoggaanka inoo haya laguma imaanin qaab xisbi waxaa lagu yimid qaab doonis shacab ay dadku rabaan marka maamulka meesha ka jiray inay bedelaan mid kale ay isleeyihiin wax waa ka qaban karaan xaaladda markaa taagan inay doorteen axsaab hadda haddii loo gudbo mooyaane inta ka horreysay mayna jirin qaab xisbi laguma imaan marka waxaan rajaynaynaa in maaragtay soomaalinimadii dib loo eego dadka walaalaha banaadiriga ahna aanan la dulminin wixii markaa xuquuq muwaadinnimadoodii ay waddanka u leeyihiin inaan dadna loo dulmin laakiin iyagana aan la dulminin marka waxaan qabaa boosishannada bannaan in maaragtay ruuxa kandidaadka munaasibka ah ud aragtaan xukuumad yaa tihiin laakiin boosishanno ay banaadir ka maqan yihiin waayaan boos marka hadda waxaan ognahay qof laga qaado isla reerkii qof baa la qanciyaa sida hadda systemka hadda socday wixii ka horeeyaba marka waa goortii nidaam iyo CV iyo wax laysku doorto iyo waqtiga allahna gaarsiiyo laakiin inta hadda ka horeysa boosaskii bannaanaaday waxaa aan tabaynaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay dowladda dad u qalmaa ay boosashannada geyso intaana waa ku talin lahaa marka aan kuuxaan badan aad maqlaysid reer banaadirigii shirar qabsanayaan oo leh xaq baa naga maqan gobolkii xaqa kuma haysano shaqooyinka oo gobolka banaadir hadday noqon lahayd airboorka dekedda xafiisyada waxba kuma haysan markay leeyihiin dhinacee lagu tiriyaa ma mucaarad baa ma dowlad diid baa bal arrintaas naftirkeeda wax noogu sheegba banaadiriga maxay arrintaas ula jeedaan ma mucaarad miyaa ma dowladday kasoo horjeedaan maxaa waaye macnaha uu yeelan karo banaadiriga waxa weeyaan dowlad isagaaba dowlad ku noolaaba la dhahaa waa sida malaayga biyo la'aan hadduu noqdo uu dhimanayo qofka banaadiriga ah waa inuu system uu ku hoos nool yahay sidaas ayuuba nolol u ah marka mana aha dad dowladiida mana u samaysna mana aha qoladii systemkii waddanka markaa ka jiray sabab u noqda hataa ama inuu baabo ama meesha uu ka baxo
markasta waxay xiiseynayaan in nidaam iyo kala dambeyn uu waddanka helo in usluub leh oo xuquuqdii kaga maqan ay u raadiyaan una jiheeyaan jihada markaasi ay arrintaasi khusayso haddii la maqli waayo waddooyin badan ayaa furan oo qofku uu mari karo isagoonan qofna rabsho samaynin ama qofna ku aflagaadaynin in maaragtay waddooyinka sharciga la maro aniga intaasaan qabaa banaadiga guuxan aad maqlaysaan iyo dhaqdhaqaaqa ka bilowday gudaha iyo dibaddaba waxay ku raadinayaan waxa weeyaan in ay helaan iyagu dib inu isu qaabeeyaan ayna helaan xuquuqda iyaga markaa ka maqan waxaa jira jogooyin oo bannaan waxaana loo soo sheegay jogooyinkaas horay dad reer banaadirya u ahaan jiray hadday tahay guddoomiye degmada shingaani oo kale macnaha way bannaan tahay sidoo kale agaasimayaal gobolka banaadir oo bannaanaa jiro xataa waxaan ka war haynaa agaasime aqoon-yahan oo ilaa iyo shahaadada PhD wato oo xilkii yacni laga qaaday oo haddana qof kale loo dhiibay xilkii laga qaaday ilaa iyo hadda uu bannaan yahay arrimaha noocaas ah maxaa ka dhihi lahayd gobolka macnaha reer banaadir laftirkoodii macnaha dhexdoodii xilka xaafadaha hadda macnaha 7 xaafadood aan deganeyn waxaana lagu soo koobay 2 xaafadood oo dhinaca mataqaanaa meelaana loogu soo kuusay marka 2daas xaafadood laftirkoodii macnaha yacni maamulka oo degmada laftirkeeda haddii qof laga qaado yacni ma qof kasta xaq u leh oo degmada degan mase cid gaar ahaa haddana ku soo noqonayso ida naftirkeeda in laga hadlaa la rabo wallahi arrinta degmada xamarweyne waa aragtay intaas maamul ayay soo martay mid hal reer ku koobnaana ma ahayn marba qola ayaa qabanaysay sida xamarweyne oo kale shingaanina waa la mid waxaa degan qabaa'ilo badan ayaa degan marba ninkii nasiibkiisii markaa noqda iyagoo balansiga qabaa'ilkana la eegayo ninka haddii uu inta badan xilal waaweyn sida wasiir ku-xigeen safaarad ama agaasimayaal meel un ka joogaan ama gobolka in haddana isla reerkii aan la oranin si loo gaarsiiyo ay dadka kalena cadaalad u dareemaan in qabaa'ilka kale ee deegaanka ah ee markaasi loo arko inay munaasib yihiin hogaamin karaana inay qabtaan waxaana ku talinaya dadka deegaanka kasoo jeeda inay noqdaan si aan loo dulminin deegaankoodii loogu dulminin qof yaqaano oo afgaran kara oo fahmi kara dabaacadooda iyo qaababkay u kala degan yihiin ayaa fiican mar kastaba inuu qofka mas-uulka meesha ka noqonayo u noqdo qaaraa waxay leeyihiin oo banaadiriga ka mid ah waa aragti waay dadka aragtidoodii in la dhegaysto waay waxay leeyihiin nidaamka 4.5ka macnaha waddankoo dhan haddana isla qowmiyadda dhexdeedii matalan qof jaga haysto beel jaga haysato meeshaas halkaas jego ayay ku ekaanaysaa matalan beelaa waxay haysataa xildhibaan ama waxay haysataa agaasimo ama waxay haysataa wasiir macnaha beeshaas jaga kale xaq uma laha inay qaadato waa inay ugu tanaasushaa beelaha kale aan wax haysanin arrintaas ma fahamta su-aasheeda waa ku fahmay horta waa dhici kartaa haddii system fiican oo degan la helo 10 isku reer ayaa wax qaban kara haddii nidaam iyo marka system uu jiro oo qof kastaba CV-giisa aqoontiisu uu ku tagaayo laakiin xaaladda waddanka uu ku sugan yahay ee waalida ah waxaa laga soo celinayaa xaalad wareer iyo jahwareer ah waxaa la rabaa si u saldhigo marka ha jabin ha dhicin isku kakabid isu keenid bahasha hadda lagu wadaa
marka iyadoo laga fiirinayo dhanka aqoonta ninka inuu yahay positionka nin buuxin kara kana soo bixi kara iyadoo laga eegayo haddana in balancega qabaa'ilka la fiiriyo inay fiicantaan qabaan su-aasha ugu dambayso aan barnaamijka kusoo afjireen waxa waaye aqalka sare aqalkii ugu sareey waa la yidhi dalka wax ka sareeya ma jiro iyo 4.5ka bal ka waran qowmiyadda banaadiriga inta labo la siiyey haddana labadii laga qaadayaa dad kale loogu daray arrintaas bal iyadana maxaa ka leedahay la jiifiyaana bannaan bahashoo la dhahaya jirto ninka xoog leh ayaa xaaje u falantayna la dhahaa marka waxaa dastuurka hadda waxaa la dhahaa laba gobol iyo ka badan ayaa maamul goboleed noqon karo laakiin meelaha qaarkood waxaa arkay laba gobol iyadoon gaarin in maamul goboleedka loo ansixiyey tanna banaadirig waxaa lagu raabay tirada aqalka sare 52 waayo laba laguma dari karo labada kursi waa xasuusanaa qaabka ay ku imaadeen waxaa isla go'aamiyey markaa dowladdii markaa jirtay iyo maamul goboleedyadii madashoodii baydhaba ka dhacday markaa waxaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ahaa Jelani Nuur Ikar dadaal badan ayaa arrintaasi loo galay way fiicnaan lahayd in walaalaheenii Soomaaliyeed aqalka sare sanatarada maanta hal qof oo reer banaadir ayna ku jirin qofaa qoraal qoray oo Sheekh Nuur ay dhahaan oo Mareykanka degan aad iyo aad aan loola dhacay qoraalkiisii oo yiri siday nafsadiinu idinku siisay dadkii asaasayaashii SYL xarumahoodii maaragtay halgankii iyo xornimadoonkii ka bilowday in maanta caruurtoodii ayna idin dhex fadhinin in maaragtay aad aqbasho weliba maxamed cabdixaashi oo yidhi nin da-ah oo taariikhda Soomaaliyeed oona caruurnimo iyo da-yaraan ayna siraynin inba maamul noocaas oo kale intuu soo fariisto shir guddoomiye oo dhaho hadda daraad waxaad ogeydeen in oo markii galmudug iyo dhismaheedii lagu jiray qof soo jeediyey dadka qolooyinkan ka yimid koonfur galbeed ee ku nool dhanka galmudug in kuraasta 11 beelood 12 looga dhigo maadaama dad walaalo Soomaaliyeed meesha ku nool yihiin fikirkaas waa fikir aad u wanaagsan weeyaan hadday dadku deegaanka marka meesha degan ay u arkaan inay dadka walaalaha ee la jooga meesha ay ku biiriyaan marka iyadoo banaadiriga ay waddanka joogaan dad muwaadiniin ay yihiin inay aqalkii sare ay waxba ku lahayn ay Soomaali intay fadhiisato qalbigeedii hataa laxaw iyo xanuun ayna ka dareemaynin oo arrintaasi wax u taagan hadda ka hadlo waa arrin aad iyo aad looga xumaado waxyaabaha waddanka meeshan dhigayna dulmigaasi qayb ka mid ah weeyaan marka walaalaheen Soomaaliyeed meel kasta joogaan xisaabaadka dib inay ugu noqdaan bal inay sax tahay iyo inay qalad tahay qofka naftiisu waa garan karaa waxa saxa iyo waxa qaldan yaa maqan warnimo iyo hooyay ahayd inay meeshan fadhiyaan qofka walaalka Soomaalidu waxay dhahaan garabkaaga laga dayaa gadaashaad lagama fiiriyo marka xaqiraad intaan ku filan dulmi intaan ku filan marka Soomaali waxay u baahan tahay inay cadaalad fiiriso oo gadaal la isugu noqdo intaasaan dhihi lahaa runtii ugu dambeyn maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la siiyey bilad sharafaa la siiyey abaalmarin ayaa la guddoonsiiyey oo yacni maamul wanaagga dowlad wanaagga runtii waa u hambalyeynaynaa haddii aan nahay qowmiyadda banaadiriga haddana aniga shakhsiyan waxaan rumaysanahay abaalmarinta ugu qaalisan waa tan shacabka kaaga timaado banaadirigana waa shacabkii Soomaaliyeed abaalmarinta ugu qaalisan hogaamiyayaasha waxaa siiya shacabkoodii taariikhdana been ma sheegto inta taariikhda baaldaabka galeen adduunka hogaamiyayaasha waaweyn shacabkoodii ayaa yacni ayaa maamuus iyo sharaf ay ka heleen
macnaha waxqabadkaas oo shacabka ay u qabteen oo muuqdo la taabay wax marka dhammaan Soomaaliya daawanayso waxaan leenahay anaga mucaarad dawladeed manihi dawladda kama soo horjeedno haddana si xadaari ah oo caalamku uu ku shaqeeyo ayaan u soo bandhigaynaa dareenkeeni iyo waxa aan tabanayno Soomaalina Soomaaliya iskale Soomaalina deeqdaa waxa wanaagsan si siman oo loo dhan yahay in dalka loo wada qaybsado 4.5 markii la dhahana beelaha afarta ah waxaan qabaa nooma hiilinin adiga sidee u aragtaa ma noo hiiliyeen wallahi oo la dhaho afarta ugu waaweyn waaye markiina laga bixi oo la dhahay aqalka sare labadii noola soo siiyo dib loola naqday nooma hiilinin afarta waaweyn afarta waaweyn inta ka hor annagoo Djibouti waxaa la dhahay ninkii markaa qaramada haysta arrimahan adariska laga hadlayaa waa kuwo kale waxaan idhi magaca la qaadi kara ma aha magacan in la daayaan rabnaa marka fasiraad fiican uu sameeyey wuxuu yidhi afarta waaweyn ee waddanka dulmiyey iyo kuwo kale aan dulminin annaga saasaan u qaadanayna haddaan international community marka horta inaan lagu ogeyn ha u malaynin adduunka way nala joogaan waan arkooyin tan ilaahayna waa goonideeda iyada laakiin dadka la xisaabtama ee dhaqaalahana laga suga adduunyada waa og yihiin waxyaabaha dadkan lagu haayo dhibaatooyin marka dhinac kasta ayaana dhibaatooyinka uga yimaadaan afar iyo bartaas marka la dhahooyo naxariis looguma samayn haddii la heli lahaa beelo ka mida beelaha inay maaragtay dhahaan waxaan ma jirto waa dulmi arrintaas inay maaragtay laga noqo lahaa laakiin afartiya itifaaq arrinta ku noqday aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sida wanaagsan aad caawa barnaamijka uga qayb qaadatay daawadayaasha sharafta leh ee sida tooska noo daawanaya dhammaantiin waxaan idin leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin mar kale saaxiibkayga cumar jeelow gaasi oo ah aqoon-yahan degan waddanka Sweden waxaan leeyahay dhammaantiin nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته